إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa xalay saqdi dhexe ku geeriyooday magaalada London inuu geeriyooday cudurka dunida aafeeyey abwaan kananisti Axmed Ismaaciil Beeri oo ahaa jiirarka ku taageeray fanka Soomaalidu ahaana nin aad uga dambeeyay xagga codkeena inuu dhegeysan jiray heesiisa sida aad heesta kusoo maqlayseen haatan ka dhaxaysay waxay heesiisa heestii ugu caansanay ee uu hayo heese kaloo caan baxay leeyahay sida laalay Axmed Ismaaciil Beeri wuxuu dhashay 1928 waxaana ku dhintay da'da 30 jir ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ayaa Axmed Ismaaciil Beeri mid ka mid ah dadkaan uga dambeyn jiray kabanka ama cuudka Soomaalida meel kasta ay joogtaba waxaan ilaahay uga baryayaa in naxariista jannaha ilaahay siiyo xalay saqdi dhexe ayuu ku geeriyooday magaalada London isbitaalka yaala Axmed Ismaaciil Beeri يعني قف فيديوهنا يوركيسا يوتيوب وقل كرا واربال كرا إن بعادها مو هين يعني قف عودك لو رنشري صومالي من يكون تمام جرتي أبيه عودك قريسنا أيام ونحني وأيو وحويان وقري ونحدين له أفرت شو قدم بسبب وحكو حنوسنين مقالة لندن أنا وقارهان بن عودكيسا ولي سنشري أنا تاجر شري ويعني عودك سدو هبقوتمو نحن نقول نقطة ساكن مركز صوت وسام وركان مغلي إلهي نحرستي جنو هكا ورابيو أحمد إسماعيل Beeri قيب كميدا فنك هي دنتي آد جعلا وحكا لو قول منه جئ أيوم نقوم بدين يهي إنا لله وإنا إليه راجعون.